بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا صديق أو فارح جبار. halkan aan ku suganahay waa magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway. Sida arkaysan halkan waxa aan isugu nimi maanta kulan ballaaran oo miisaan leh. kulankaas oo insha Allah biidnillaahi kariim uu marti ku yahay Colonel Cabdillaahi Jaamac Samatar oo ahaa raggii u xidhnaa siyaasadii waqtigii dawladii kaligii taliyay Maxamed Siyaad Barre. qodobada sida caadadu ay ahayd waxaan barnaamijkeena aan ku furanaynaa aayad quraanka kariimka waxaan idin aqriyaa aniga oo ah Abu Sidiq Farax. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إليها آخر لا برهان له به فإنما حسابهم عند ربهم إنه الله يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ayada quraanka kariimka ilaahay haynagu anfaco halkan maanta waxa isugu yimid rag aad iyo aad u miisaan weyn aqoon-yahano abwaano saxaafad sidaad arkaysaan Cabdillaahi Jaamac Samatar oo ah nin loo wada garanayo waa korneeladii ugu horeeyay oo xidhan jiray dilka waqtigii kaligii taliyay Maxamed Siyaad Barre oo xukuumaddiisu jirtay waa 80kii ilaa 80kii wixii ka horeeyay. maanta halkan waxa la isugu yimid waa taariikhdii iyo aasaaskii group A SNM isagoo ka sheekayn doona iyo qaybta uu ku lahaa Colonel Cabdillaahi Jaamac Samatar. haddaba halkan waxa jooga oo kulankan isugu yimid oo ku casuman waa safiirka Somaliland u fadhiya dalkani Norway Sulub Xuseen Warsame. waxa halkan dhinaciisa fadhiya Cabdillaahi Jaamac Samatar oo isaguna ah UFO iyo groupkii maxaabiistii waxaan u maleynayaa inay ahaayeen laba maxbuus oo taariikh leh Cabdillaahi iyo Axmed Maxamed Madar gudoomiyaha la dagaalanka musuqmaasuqa Jamhuuriyadda Somaliland oo halkan ku sugan isaguna waxa halkan ku sugan oo isaguna miisaan leh ilaahay haday abwaan aqoon-yahan Cabdillaahi Saleebaan Maxamed oo Cabdillaahi Saleebaan Dide oo halkaas soo fadhiya oo barnaamijkan isagu inoo daadihin doona taxanihiisa inoo bilaabi doona ku wareejin doona hadii Allah awood loo ogolaado. waxa maanta halkan fadhiya oo isaguna goob jooga ah golihii dhexe ee SNM ugu dambeeyay waagii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed halganka balaaran ku jiray waa eeg safiir Maxamed Aadan Oliilan oo halkaas soo fadhiya. waxa ku xiga gudoomiyaha guurtida Somaliland mudane Maxamed Murtahar oo isaguna fadhiya. waxa goob joogka kulankan saxaafadda TV-ga qaranka Somaliland wakiilka u fadhiya dalkani Norway Maxamed Jaamac Awad Maxamed Shariif. waxa jooga oo kale saxaafad waxsan sheeg news Bleedig news Sugan news. waxaan idin leeyahay dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkan oo ah mid aad iyo aad u miisaan weyn una qiimo badan loona baahnaa taariikhdan in maanta laga sheekeeyo SNMA waxaanu wada naqaan SNMB. waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka oo igala wareegi doona idinla daadihin doona hadii Allah awood loo ogolaado abwaan aqoon-yahan Cabdillaahi Saleebaan Dide. Cabdillaahi ku soo dhawo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مدنيال شجوبت شوجا وحنسوق الدنيا يا سلام كالقعدتويو وآذو قيمة بدن. أنا جو كهذا لايه مجا مناسبة أنا نسوق نمي مناسبة آذو قيمة بدن. runtiina aan rumaysnay inaan wax badan oo xog ah oo loo baahnaa aynu ku kala faa'iideysan doono. waxaan si gaar ah marka hore u xusayaa munaasabadan oo ah ujeedadeedu ay tahay bal taariikhdii aasaaskii ururkii SNM iyo bilowgiisii halganka inaanu maanta ka wareysano oo aanu ka dhageysano warbixin jaanisna aanu u helay nin aad ugu qiimo badan oo xog badanna ka hayay kana mid ahaa raggii goobta joogay gaar ahaan marka aynu ka hadlayno magaalada Muqdisho caasimadii aasaaskii dhaqdhaqaaqa wadaniga ka bilaabmay waa Colonel Cabdillaahi Jaamac Samatar
ujeeddada aynu u leenahay ee aan waraysigan u samaynaynana maaha mid ka soo horjeeda ama cid gaara laga leeyahay, laakiinse waxa weeyaan si aynu u helo qaybaha kala duwan ee xogaha aasaaskii iyo bilowgii SNM inaynu cid kasta oo muhiimaba ka waraysano intuu nool yahay, dhaxalla ka reebno sida wax u dhaceen si aanay taariikhahaasu inooga lumin. waxaa garabkiisa fadhiya guddoomiyaha guddiga maamul wanaagga mudane axmed maxamed madar oo isna ka mid ahaa xubnihii UFO ee iyana loo soo xidhay muddada dheer halgankan aawadii. waxaa xusid mudan oon iyana goobtan uga mahadnaqayaa oo nala fadhiya wakiilkii jamhuuriyadda somalilan sulb xuseen warsame, wakiilkii hore ee isna jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed liilan oo ahaana golihii dhexe ugu dambeeyey SNM. waxaa nala joogo kale isna guddoomiyihii guurtada Oslo maxamed nuur axmed. waxaa halkan goobta nala jooga TV-gii qaranka somalilan maxamed jaamac dhiif, saxaafadda kale ee waxsan sheeg ka mid yihiin. dhammaan dhallinyarta iyo waayeelka joogaba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa una soo dhaweynaya. waxaan mar kale ilaahay naxariis uga baryayaa mujaahidiintii ku geeriyootay halgankaa iyagoo u soo halgamayay ummaddoodii, mid ama jeel loogu dilay ama si dadban ugu dhintay iyo mid kafool dagaalba ugu dhintay. dhammaantood ilaahay waxaan uga baryayaa intii dhimatay inuu naxariista janno ka waraabiyo, inta noola uu abaalkeedii ka siiyo. run ahaantii waa wax lagu farxo oo maanta aad iyo aad nin nasiib labaa jooga bilowgiisii iyo dhammaadkiisiiba. warbixintan inta badan waxaynu siin doonaa haddii aan la yidhaahdo cabdilaahi jaamac samatar. sheekadan si aynu u ogaano waxaan halkan ku hayaa go-aankii maxkamadda. go-aankan waxa weeye go-aan maxkamaddii badbaadada ay samaysay dowladdii maxamed siyaad barre ilaa madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad ilaa dad caadiya oo dee sibalkii dal ka tirsanaa ayaa ku xukuman oo dil iyo xabsi daa'in iyo ku xukuman xabsi dheer. marka waxaan rabaa horta bal magacyadooda inaan marka hore dul maro. waxa weeyaan oo ugu horreeyey sarreeye guuto Ismaaciil Cali Abakor oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka saddexaad kana mid ahaa golihii sare ee kacaanka 1969. waxaa ka mid ahaa Cumar Carte Qaalib. waxaa ka mid ahaa gaashaanle dhexe Axmed Maxamed Halac, gaashaanle sare Maxamed Cabdi Aadan, Dr. Cabdi Ismaaciil Yoonis Cabdi Duse, injineer Suleymaan Nuux Cali, gaashaanle dhexe Aadan Maxamed Samakaab, gaashaanle dhexe Cabdilaahi Jaamac Samatar oo ah ninkaynu maanta wareysanayna ee nasiibka aynu helay ee ina hor fadhiya, Dhamme Xuseen Ismaaciil Cabdi Karaash, Axmed Cumar Cabdalla Gowdhan, Cabdi Cabdilaahi Madar hoosjeed, injineer Faarax Xuseen Axmed oo wada garanaysano halkan inala joogo injineerkeeni ahaa, Jaamac Cusmaan Ismaaciil Samatar, Maxamed Xasan Ismaaciil ina Xasan Dalab, Maxamed Saleebaan Yuusuf Ilka Case, Ismaaciil Xoore Qalombi haa. waxa kale iyana barbar socday oo ku jiray niman kale oo madax ahaa oo la sii daayay oo uu ka mid ahaa waxa ka mid ahaa Cumar Xaaji, Generaal Cumar Xaaji. waxa ka mid ahaa Cismaan Jeelle oo isna ka mid ahaa golihii sare isla markaana ahaa madaxdii hogaankii xisbiga waqtiga. marka haddii aan intaas hordhac ka soo qaado tan waa jiradii iyana soo baxday waqtigaas ee xukunka lagu bayaaminayay, intii dilka lagu xukumay iyo intii xabsiga dheer lagu xukumay iyo intii madaxaa ku furta lagu xukumayba. taariikhda waxa barbar taala aynu xusnay warbixin dheer oo ah
dadka isu yimi dad aada u kala fog bay ahaayeen. halganku hargeysuu ka bilaabmay, xamar buu ka bilaabmay, sacuudiguu ka bilaabmay, wuxuu ka bilaabmay meel kasta oo dadka somalilan u dhashay ay joogaan. runtii halganku ilaa 60kiiba wuu soo socday oo halgan dheer buu ahaa, laakiinse halganka dambeenu ka hadlaynaa maanta waa kii SNM, waa kii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed. xilligaa ayuu bilaabmay. haddaba anigoon waxba kusii raagaynin ee u wareejin doona cabdilaahi jaamac samatar, bal aan in yar ku noqdo. cabdilaahi jaamac samatar waa kuma isaga laftiisa, bal wax yar aan idinka baro. korneyl cabdilaahi jaamac samatar wuxuu ku dhashay duleedka magaalada Burco. wuxuu malcaamadii ka galay magaalada Hargeysa. dugsiga dhexe wuxuu ka bilaabay Hargeysa, dugsiga Sheekh Bashiir iminka loo yaqaanay bariga hore Fisher baa loo oran jiray. dugsiga dhexe wuxuu ka galay Hargeysa iyana Axmed Gurey Samson baa loo oran jiray bariga. markuu ku dhigtay ilaa fasalka afraad ayaa wuxuu u bedeshay Ceerigaabo, iskuulkii Dayaxa loo oran jiray. Dayaxuu ku soo qaatay ilaa iyo dhamaystirkiisii dugsiga dhexe. wuxuu markii dambana soo galay dugsigii sare ee Sheekh, halkaasoo markuu ka baxayna uu noqday candidate officer ama ciidamada qalabka sida uu ku biiray. waxaa loo diray ruushkii. wuxuu dib dabka ugu soo laabtay 1968. 1972kii waxaa dib loogu diray haddana ruushka aqoon kororsi hubka dayuuradaha ah, gaar ahaan miigii 21. 1973 ilaa 1980kii wuxuu macallin ka ahaa dugsigii ciidanka cirka ee Xamar. sideedanaadka dabayaaqadiisii waxaa loo bedelay saldhigga ciidanka cirka ee Berbera. 1982kii waxaa lagu soo celiyay Xamar. isla bisha May 1982kiina wuxuu ka mid noqday ragga xukunka ku dhacay ee loo qabsaday in ay sameeyeen urur qarsoodiya oo ka soo horjeeday midnimadii Soomaaliya iyo kharbudaadna ka sameynayay dalka gudihiisa. waxaa daba isweydiin leh oo aada u muhiim ah, cabdilaahi jaamac samatar oo midigteeda fadhiya, waxaa isweydiin leh oo qaali ah oo gaar ahaan dee aan ku xusaynaa munaasibadan. waxa weeyaan qolada keliya ee lagu xukumay go-aankaas ku soo baxay maxkamaddu ee aan cidi ka murmaynin, ee la leeyahay waxay aasaaseen ururka qarsoodiga ah. okay, qaybaha waynu haynaa warbixinadooda inta badan, ama sidii SNM London uga hirgashay, siday Sacuudiga uga hirgashay, dhaqdhaqaaqyadii maxalliga ahaa ee gudaha ee ufa ka mid ahayd Axmed Maxamed Madani nagala joogo. laakiinse tan waxaan filayaa inay tahay markii ugu horreysay ee la isa soo hor fadhiisto ee nin lagu xukumay ururkaa inay aasaaseen, isaga iyo madaxdii dalka markaa ugu sarreysay la waraysto. su-aalo badan baa dadka isweydiinayaan. cabdilaahi oo ah maxaa ururka loo aasaasay, sidee loo aasaasay, sidee dadkanu isugu xidhmeen, niman waa civil, qaar waxa weeyaan waa madax sare. su-aalo badan baa taala. saraakiil badan baa jirta oo xamar ka timi oo tallowday. warbixintaasoo dhan muddo waa la sugayay. haddaba anigoo hadalka kusoo wareejinaya geesimo gaagaxe, waxaan ku leeyahay kusoo dhawow warbixin waafiyana intii aad ka ogeyd iyo qaybtii aad ku lahayd iyo saaxiibadaha qaybtii ay ku lahaayeen saani nooga shaafi. micnaheennuna wuxuu yahay in aynu taariikhdeena usoo bardhigno ninba intuu hayo ummaddiisa. laakiinse cidna kula tartami mayno, cidna kuma xumaynayno, ujeedada kalena kama lihin ee wanaag iyo kalgacal unbaynu ka leeyahay. assalaamu calaykum, kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عبد الله أرنتني هرت وحن أركا أنا شخصيا وحن أركا وموضوعات بلارن هبلارنا ذا وموضوع راجي ودير دوري أفرت سنوات مرية وحدي كرتا إن وحياة بدل إلا هوي هي بس كحدي أنا وجودي وقتي أنا واسبورية يلكذا موضوع كان عيد أنه ما أنت
ninkii shaacirka ahaa ee loo jiray axmed shawqi ayaa gabay u leeyahayba waxaa ku jirtaa man yakdibu taariikha yakdibu rabbahu wayusii'u lilamwaati walaxyaa yani taariikhdu iyada isqoraysa bani aadamka kani wuxuun dhaqdhaqaaqan wuu samaynaya laakiin waxani waa qadar ilaahay bay ku soconayaan nin taariikhda been ka sheegayna waa nin qadarka ilaahay been ka sheegay sababta wax ilaahay gacanta ku hayo sidani ahayne sidan ahay war sidii ilaahay u dhigay ay wuxuu u dhaceen waxaad ka ogtahay ka taabo marka waxa weeyaan man yakdibu taariikha yakdibu rabbahu wayusii'u lilamwaati walaxyaa kuwii dhintay iyo kuwa noolba dee u hagardaamaynaya dhibaato u geysanayaan carbon waayo taariikh aan jirin buu samaynaya ama taariikh jirtuu daboolaya anigu taas midna maanta uma jeedno wixii dhacay ha koobnaadeen ha ballaadhnaan siday noocay doonaan ha noqdeen cid kasta ha fulinayso siday wax u dhaceen ayaynu u sheegaynaa anigu aan ka ogahay wixii aan ka ogahay ayaan ka sheegaya cid aynu kula tartamayno iyo cid aynu ku durayno iyo cid aynu faa'iide kaga doonayno midna ma jiraan waa taariikh aynu uga tegayno dhaxal uga tegayno dad badan baa laga yaabaa sida runtu tahay lagama yaabo way tahay aan si allaale iyo si ay waxani ku abuurmeen aan ogeyn sheekooyinoon maqmaqlay dabeedna sidii lagu yidhi uun isaga qaatay haddaba maanta waxaan isku dayayaa insha allah bidnillahi alkariim sidii anigu aan waxu ogaa in aan u maro horta halka kani mid bilaabmay ma ahayn shalay iyo doraato iyo taariikhdan iminka dee dadkiiru sheegay waxa weeyaan halkan soo taxnaa ilaa 60kii berigeenu soofdaran habownay ummaddu ay jidka qalloocan la qaadsiiyey mayna qaadin la qaadsiiyey halkan soo taxna iyo tabasho soo taxnayd oo ama ciidan ha noqoto ama arday ha noqoto ama haddii badankee leeyahay dad shacbi ha noqotee waxay ahayd tabasho soo taxnayd oo isdaba taallay tallaabooyin badanna dee waynu aragnay oo intii aanu haddii badankee ilaa 61kii 62kii 63kii 64kii 65kii yani baarlamaanka iyo wasaaradii iyo dadkii haddii badankee leeyahay arrimaha markaa inoogu dhuun daloolay waayo markaynu inagu ardayda ahayn waxa kan aad inooga muuqan waxaan aad uma inooga muuqan laakiin gadaal baynu ka ogaanay waxaan xasuustaa 63kii ayaa iskuulka sheekh waxaa noogu yimi ninkii la odhan jiray yuusuf ismaaciil samatar gandi baa noogu yimi dabeed gandi wuu noo ilaahay u naxariisto wuu noo khudbadeeyey howlkiiba la isugu yimi iskuulka wuu noo khudbadeeyey hadalkiisu wuu badnaa oo malaa saacad dhow ayuu nala hadlayay laakiin dee iska dhalinyaraanu iska ahaynoo hadalkiisii yani qiimo badan oo caynkaasa nalamuu lahayn beri dambe oo ay ka soo wareegtay years ay ka soo wareegeen ayaa hadaluu maalintii meesha ka yidhi laakiin aanu anigu garan weynay ujeedadiisa wuxuu yidhi sheekh school ma yahow sheekh school waddadii uu dhigay ha burburinina exactly this words buu sidaa u yidhi ma yahow sheekh school waddadii uu dhigay ha burburinina way ku dhadristaan war muxuu uga jeedaa waddadii sheekh school dhigay sheekh muxuu sameeyey haddaad iminka cabdilaahu markaan dib u noqday ee aan muddo ka fekeray wuxuu uga jeeday waraaqdaa iminka aad akhriyeysay hadda eedeysanayaasha labada nin ugu dambeeya axmed cumar cabdalla qawdhin ducale iyo ninkii la yidhaaho hoosujeed labadaa mooyaane inta kale waa sheekh aan ahayn cumarna macallin buu ka ahaa cumarna macallin buu ahaa inta kale waa sheekh yani marka waxa weeye waxyaabo badan ayaa sidooda iyagu isfasiraya oo isfurfuraya haddaan intaa ka soo dhowaado waxaan markii hore hadalkayga ku caddeeyey war waxan waa taariikh ninoona ha u qaadanin taariikh aadan lahayn in laguu sameeyo
midaad leedahay in lagaa dafirayo anigu wixii aan ogaa iyo wixii aan la kulmay ayuun baan halkaa miiska saarayaa maanta halgankani markii dambe halganka hubaysan isu bedelay waxaanu annagu ku dhaqaaqnay oo aanu nuuxnuuxsigiisa bilownay 1973 rag ahaa 13 rag baa yidhaahaa 78kii u bilaabmay 75kii u bilaabmay sheekooyin caynkaasa ayaa la yidhaahaa laakiin reality waxayd 1973 ayaan bilownay waxaa jiray markaa waa la sheekeysan jiray marka meelaha dee laylutushuba dee la qiilayo markaa specially qolo waliba ninun kusoo dhex dhuunta mooyaane group yani macallimiintu way israaci jirtay oo civil service kale way israaci jireen oo askartu dhinac yani qolo waliba goori ahaanteeda ayay isugu xidhnayd haddana dusha wala iskaga xidhnaa wadda wala siqiinay atawgiiba batay atawguna wuxuu ka yimi markaan dib u yara noqdo inqilaabkii ilaahay naxariistay xasan kayd iyo grupkiisu ay isku dayeen dhaawaca ugu weyn ee uu geystay inqilaabkaa fashilay wuxuu ku dhacay militariga ayuu ku dhacay gaar ahaan saraakiishi sababtay noqotay militarigu da wuxuu lahaa ilaa 17 hoggaan baa jiray 17kaa hoggaan keliya oo nin reer waqooyi fadhiyaan kuma jirin hoggaan keliya oo nin reer waqooyi fadhiya kuma jirin beri dambe oo kacano iyo wax yimaadeen ayaa ninkii la odhan jiray axmed jaama soomaalia hoggaanka sancada loo dhiibay ninkii la odhan jiray cabdilaahi kaahinna markii hore waa kii sivilka ahaa gebigiisu lagu soo wareejiyay ciidamka isaguna waa kii hoggaanka maaliyadda loo dhiibay 78 marka laga yimaado 1979 xasan selin ayaa isagana waxa loo saadka loo dhiibay that's all hoggaan keliya oo ka horreeyay nimankaa mayna lahayn markaasaa waxa dhacday marka for example cadet officerska marka la qaadanayo ogeysiiska lagu soo qorayaa waa inuu ka baxay secondary ama waa in uu certificatekiisa haysto sanadkii hore ka baxay ama sanadkan ka baxay oo uu sugayo certificateki waa inuu ninkani secondary level ka soo baxay imtixaankii marka la galo beri hore imtixaanna ma jirin lagama qaadi jirin ciidanka imtixaan mar hadduu ninku certificate keeno imtixaan lama qaadi jirin musuq maasuqa batay ruushka imtixaankan inta badan qaadi jiray laakiin ruushka laftoodu waxay qaadayaan dee marka hawta laga soo yari joogeeyo la yidhaaho magarasa musuq maasuqa ku dhow soo galeen imtixaanadii certificate markuu socon waayey ayaa la yidhi imtixaan laga qaado iyadoo imtixaan laga qaadayo seebta ayaan haddana waxba ka naas cadayno sideedii musuq maasuqii iyo markaasa waxay noqotay saraakiishii wax alaali wixii reer waqooyi dadka dhibka kala saaraya ile dhulbaante iyo isaaq iyo akaaradii iyo saa u kala saarsaaraya dad ma jirin waxaasi yani languageka waxaa la eegayey dialectkaaga ma yahay waa kaa wey dabadna engineeringka iyo medicineka iyo waxaa la yaab garaysaa haddii kale qiimaha leh oo dhan waa xagga rudu iyadoo taasi ay dhacdo oo dee wixii la arkay ayaa haddana hoggaanadii markii dib loogu soo noqday waddankii saraakiishii soo badatay ee lasoo noqday ayaa waxaa haddana dhacday meel xafiis alali xafiiskaad tagto ilaa hoggaanka ilaa iskrivaniga miiska soke fadhiya oo isku khad oo isku layn aduu baa ka dhex qaylinaya sidii shaydaanka waddanka base wax badan lagu waayay waxaa dhacday markaa 1973 iyadoo oo meelahaasun daa lahayo oo laisku wareegeysanayo wallahi waxaana dhacay wallahi tana dhacday wallahi weyn meesha waynu ku dhimanay wallahi caynkaasaan dhacay wallahi billahi taala dee waxaa la afuufo sanadaha waxaanu u bixinay sanadihii baabalcatawga waa 1973 sanadihii baabalcatawga ayaanu u bixinay dabeedna
1973 ayaa ninka la yidhaaho ismaaciil cali bokor weyse u xasuusantihiin mooyaane raggii berigaa joogay iskoola boolisiya ayuu khudbad ka akhriyay siyaad barrena wuxuu ku maqan yahay sacuudi arabiya khudbaddii ayuu aada ugu tiiqtiiqsaday oo musuq maasuqii iyo qabyaaladii iyo cakaaridkii iyo wixii ahdibanka leeyahay kacaankani ka dhashay oo la soo celiyey iyo sheekadu oo halkeedii hore kacaanka ka horreysay ku socota ayuu aada uga hadlay arladu indho kale iyo indho kale ma lahayn tii waxa la dhegeysan jiro raadiyo muqdisho tvgan iyo cakaarida waxaan dee shalay yimaadeen wasoo anagii soo qan jiray aryaane maqlaysa khudbadii aragoo maqlaysa aryaane oo dad muxuu jeedaa anagii baa markaa dii isku yaro noqnoqno anagii siiraha xasanay at the same time 1974 ku hadana mid kale akhriyay warta taasaa anaga nasi istaadhay oo wallahi arlada rag baa ku nool arlada rag baa ku nool horta markaas ayaanu anagu isu imaatinka yaga military ahaan aanu bilownay intii hore yani ka sheekay ahayd jawaad cabdillah waxaanu samaynay waxaan u tegey galaba waxaan u tegey ismaaciil anigu shaxaadba maaha laakiin rabshadoon maan ahayn markaanu cabaar sheekaysanay ayuu wuu fikerayaa intaasoo waxaad mooddaa in cid kale la sheekaysanaysaa dabeedna hadalkii baa naga yaro kululaaday kaftankii oo isaguna sheeko kacaan buu ii saarayaa marba oo ii duwayaa aniguna kacaankan iyo wax kaba waa ku kacsanahay oo ku firinbirsanahay dabeedna markii dambe siduu u joogay wuxuu igu yidhi waryaa waa ina kaaga yar where is north yeah where is north xagga waqooyi jira waqooyi mee haddana wadiinaysaa maanta anaga wadiinaysaa waa iska kacan markay ka dambeysay aan malaynay inay ahayd about 3 bilood ayaanu ilaahay ha u naxariistee maxamed xaashi jiray ina xaashi fariid lama dadku uma yaqaano malaynaya lixriin xaashi fariid looma yaqaano maxamed xaashi lixdan baa loo yaqaan ayaa waxaanu ku kulannay lixlena waxaanu niqinay ilaa 1952 ayaanu isniqin waxaanu secondarygii sheekhna waa soo barro ayaa waxaan ku kulannay waddadii dabka ee Casa Popolare dabka maya guriga shaqaalaha saa wada degi jirtay isagoo Casa Popolare ka yimid annaan hoos u socdo Casa Popolare ku socdo yaa halkaas kaga hordhim waa goor about 7:30 waan waxaad baro cabaaron ka soo aanu siyaro balxalda ka waran kaasuu kelmaddii Ismaaciil yidhi ayuu yidhi wariya Abdullah where is north markaasaan hadiglayso kelmadeedii markaasna aniga waxaan is idhi warnayoneedhe goormay is arkeen goormay is xidhiidheen goormay sheekaysteen waayo maalintaasu Ismaaciil wuxuu iigu daray hadalka inamadiina yaryar intaa meelaha isku xidhaan qiiqa isku karinay berigana suufi miidhan baanu noqonayoo qiiq iyo foox iyo waxbaanu isku bukuuri jirray meelaha inta qiiqa isku kaciyaan haddii badankeelay halkaa ka tarabalaa baa waxaad doonaysaan kacaanka sidaasaa isleeyihin kacaanka ku rida والله أنا عقد دول خدنا إيطالي دين هاينو والله أنا عقد دول دين مرينا كعبد الله كويتي إسماعيل إلا حد كي سود ويدين لها قبل وحاجة فهاينا كبيح إسماعيل لفتيس إسماعيل دي وحن وين كيس مويه قانين ده يكسو مدحوينه يوم بقى مدرس مقلة صح مركز دمنا والله حريبان لي صح والإسماعيل باك جراوند كيني حديد كيني ومتساعد نموها ومتهول نموها سدوها بالفافين كبيح متهول نمو أيوها إسماعيل وقت كان كله لحدا نشبران أيام نشبران مقالة الشيخ اللي راهو يسوق بركة وحها مالي ستاندر 3 أي أنا جميل اللي كثير أنا غير الكلام تبعنا إلى أنه هرستي موسى جلال أي نلوكي اسمه مركا موسى وحو هيا لبو أجروي هاي أحمد شامع آذن شامع ninka la yidhaho sifir ee safiirka ahaan jiray ismaaciil nin la odhan jiray uu dhintay cali coofi anna markasaa lay keen
ilaa waqtigaasaan soo noqon dabeed ismaaciil waxaan ku yidhi wallahi anaa cagaad u dhul idiin marineen haddaanu itaal idiin hayno wax maanta ay ugu daray hadalka aan markaa ka labada xadhig marka isku kaya xidhmay waxa weeyaan inamadiinayeen waan wariya talo idin basaaseedii sheegay yaa idinka sheekaystee qiiqiina iyo fooxiina iyo wixii yaa dhankan yaa u gudbiya markaasaan ku yidhi qiiqiya fooxaad ku xagad ku ogaatay waddanka annaga xukunna buuri waddanka annaga xukunna halkaasi cabdilaahu markaa iyada oo aanu malahan marka dee la qayilaya lasu imaado iyo ayaa halkaa wixii arrintii ka yara bilaabato ka yara kululaatay waxaa ku xigtay markaa dhiijiyadii badnaa la eriyey waqooyiga u badnaa waqooyi bay ahaayeen horta taasina waxay nagu sii shubtay shidaal cusub waxaanu oran ciribtirkii markii hore dee halkii arrintu taagnayd hoos looga digayoo dee guntaba laynaga rujirayo